odayga macnihii waa lagu dhageystay ku dhageysasho ma taqaanaa waa lagu adkeeyey loo joojin maayo xaggee maraysaa bes saakay ayaa laga qabtay maanta maxaa dhex maray marka wuxuu ku yidhi daniyow madaxweynaha puntland waa adiga waa ku aqoonsaday maantay mar haddii madaxweynihii aad tahay hubkan gacantaada uu galay ceebaan dhex joogaa internationally iyo internally heer caalami iyo heer gudaha ah waxaan kaa codsanayaa SSE qaatumo arrimaha aan ka wadayna haddaan ku dhawaaqa shir jaraa'id anaa qabanayo waxaan leeyahay ha lagu daba faylo Siciid Cabdullaahi Dani anaa dhahay waxaasoo dhan way dhammaadeen wax SSE la yidhaahdo dhismaheeda iyo dhaqdhaqaaqeeda idaacaddaan soo istaagi isla maantaan ku dhawaaqaya official ma ahan warqad idaacaddaan imaanaya bes waayaan leh statekaaga ma faragelinayo waxaan ku samaynaya male raalli noqo abkaaga magan sidaasi awgeed hal mid aan kaa codsanaya waxaan rabaa baaristaada u dirso markabka iyo waxa saaran dhib male baarbaaro laakiin arrintan walaalow garkaan ku haystaa jilbahan ku haystaa demi oo macnihii yacni caalamka hadda way gashay laakiin arrintan adigu ha weynaynin oo aniga dhibaato iyo aniga dawladdeeda aysan i gaarin ilaan meesha dhibaa ka soo socda dhib ka soo socdana oo ku sheegaya Siciid Dani wuxuu ku yidhi maya saaxiib baashaan meel dheer bay gaaraysaa yacni wuxuu yidhi xataa markabka hubka saaran dibaan ka xaajoon doonnaa waa ka wada hadli doonnaa laakiin waxaan kaa codsanayaa hadda now arrintan inaad demisid oo ma arkaysa macnihi yacni heer caalami aadan ka dhigin oo aa shiiqisid oo aa u gaabisid leefadda wax kastana waan ku heshiin karnaa khalad kastoo aan kaa galayna waan kaa raalli garaynayaa Siciidow SSC na haddaan ku dhawaaqayaa wax kama jiraan inay tahay bal waa la soo xirxirayaa dambiilayaal Puntland qas ka sameeyay inay yihiin aan ku dhawaaqi waana la soo xirxiri xabsiyaa lagu guri fardhiye iyo laakiin Dani muxuu ku jawaabay Dani wuxuu ku jawaabay uu ku yiri hubkaan ka wada hadli doonaa arrintan shiiqi marka la yiri hadda Dani maanta Jaanis u haystaa sida uu u farxay Siciid Cabdullaahi Dani xalay farxadda uu ku seexday ku soo toosay saakay maalintii uu dhashay ilaa hadda uma farxin ogaalkeena weligii sidaa uma farxin arrintan meel dheer bay gaaraysaa